waxaa dad badan oo daawada aflaanta Hindiga aan ka qarsoonayn in jilaaga caanka ah ee Salman Khan uusan guursan weligiis. Salman Khan oo ay da'diisu tahay 53 sano jir laguna bartay aflaanta Hindiga ee jacaylka iyo dagaalka ku saleysan ayaa su'aasha ugu badan ee la weydiiyo noloshiisa waxaa la sheegay in ay ahayd sababta uu u guursan waayay. waxaana marar badan su'aashaas weydiiyay warbaahinta dalka Hindiya oo in muddo doonayay inay ogaadaan waxa jilaagan caanka ah uu u guursan waayay. Salman Khan oo dhowr jeer la weydiiyay sababta uu u guursan waayay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, isagoona hore u sheegay in sababta uu u guursan la'yahay ay tahay dhaqaalaha guurka oo ku baxa oo ka badan intii ay guursan jireen xilligii hore. hase ahaatee jawaabtaas ayay dad badani u arkeen in Salman uu isaga jeedinayo indhaha shacabka iyo taageerayaashiisa, maadaama jilaaga uu ka mid yahay jilayaasha ugu hantida badan dalkaasi ayna jiraan sababo ku kalifayn in xilligani dhaqaale la'aan uu uga cabsado inuu guursado. balse warbaahinta dalka Hindiya ayaa maalmihii la soo dhaafay hadal hayay xog hoose oo ku saleysan qoyska Salman Khan. inkastoo aysan warbaahinta xaqiijin karin xogtaasi ayaa haddana qaar ka mid ah warbaahinta dalka Hindiya oo soo xiganaya qof ka mid ah qoyska Salman waxa ay ku soo warameen in uusan Salman doonayn inuu qoyskiisa ka fogaado. Salman waxa aad loogu yaqaanaa qadarin uu u hayo qoyskiisa dhowr jeer oo hore oo uu isku dayay inuu guursado waxa ay la noqon weyday in fursad la noolaansho uu siiyo qof kale oo aan hayn qoyskiisa, taasina ay tahay sababta uu u guursan la'yahay. sidaas waxaa qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya u sheegay qof ka mid ah qoyska Salman Khan. sanadihii dambe waxaa soo baxayay warar aan la xaqiijin oo sheegaya Salman Khan inuu doonayo inuu guursado gabdho ay ka mid yihiin Katrina Kaif iyo Lulia Fantua, balse wararkaasi noqday kuwo xan ah oo kaliya oo aysan waxba ka suuro gelin. waxaana qoyska Salman Khan la sheegay in mar walba ay ku booriyaan inuu guursado balse isaga uu go'aankaas keligii qaatay. qoyskiisa waxay mar walba doonayeen in Salman Khan uu guursado qaar ka mid ah gabdhaha ugu caansan dalkaas, balse dantiisa shakhsiga ah waxa uu mar walba ka hormariyaa tan qoyskiisa oo wuxuu jecel yahay in uu la noolaado qoyskiisa ayna noqdaan qoys boqortooyo oo kala ah, ayuu raaciyay qofkani ka tirsan ehelkiisa. Salman oo dad badan ay u arkaan inuu sii duqoobayo marka laga eego da'diisa aynana waxa reer ah yeelanin weligii, arinta oo dad badan ay la fajiceen maadaama qaar ka mid ah caruurta jilayaasha ay isku waqtiga ahaayeen Salman ay durba ku soo biireen jilayaasha aflaanta. Salman Khan oo u dhalay jilaaga caanka ah ee Salim Khan ayaa shirkadda Bollywood-ka ku soo biiray horaantii sagaashameedyadii, waxaana tan iyo xilligaas uu soo jilayay in ka badan 100 filim oo dhaqaale badan uu ka sameeyay. hantida uu haysto waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad ilaa iyo 300 milyan oo dollar. qaar ka mid ah hay'adaha falanqeeya arrimaha filimaanta ayaa Salman Khan ku tilmaamay inuu yahay jilaagii ugu wanaagsanaa ee abid oo soo mara dunida, inkastoo oo sidoo kale ay dood keentay arintaasi ayna barbar dhigeen jilayaal kale oo ka mid yahay jilaaga lagu magacaabo Shah Rukh Khan.